maamul goboleedka Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in gelinkii dambe ee shalay hubka culus ee lidka diyaaradaha inay ku weerareen diyaarad ka soo duushay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho isla markaana doonaysay inay ku degto garoonka diyaaradaha deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. Jubbaland ayaa war qoraal ah ay soo saartay ku sheegtay in diyaaradda lidka diyaaradaha ku weerareen ciidamadeeda inay siday shixnad iyo saanad military oo ay u waday ciidan ay dhawaan geysay dawladda Soomaaliya deegaanka Ras Kamboni. ciidamada Jubbaland ayaa gelinkii dambe ee shalay lidka diyaaradaha ku garaacay diyaarad shixnad u siday maleeshiyaadka laga soo daabulay magaalada Muqdisho isla markaana loo soo daabulay deegaanka Ras Kamboni. diyaaradda ayaa jihada ay ka degi jirtay ka carartay kana soo degtay dhanka xuduudda Kenya iyadoo markii ay ka duuleysay garoonka diyaaradaha Ras Kamboni faracaaradood uga fakatay lidka diyaaradaha ay adeegsadeen ciidanka Jubbaland ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay telefishinka maamulka Jubbaland. warka ka soo baxay Jubbaland ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada maamulkaas ay fariisimo ka sameysteen meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana ay beegsan doonaan diyaaradaha doonaya inay ka soo degaan Ras Kamboni. ciidamada Jubbaland waxa ka go'an sidii loo soo afjari lahaa maleeshiyaadka xamar diyaaradaha lagaga soo daabulayo si ay u qalqalgeliyaan amniga deegaanada Jubbaland ayaa lagu yiri mar kale qoraalka lagu baahiyay telefishinka Jubbaland. warkan ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay dawladda federaalka ay hakisay dhammaan duulimaadyadii dalka kadib markii dawladda iyo shirkadaha duulimaadyada isku fahmi waayeen duulimaadyo dawladda ku doonaysay in Ras Kamboni loogu geeyo ciidan iyo saanad military. xaaladda ayaa ka sii daraysa mar haddii ciidamada Jubbaland ay bilaabeen inay beegsadaan duulimaadyada tooska ah ee ka degaya deegaanka Ras Kamboni. waxaana tallaabadan Jubbaland ay ku duqeysay diyaaradda shalay doonaysay inay ka degto Ras Kamboni ay ku soo aadaysaa xilli Jubbaland ay shaacisay 2 bishan December in ay beegsan doonto diyaaraddii ciidan ka soo qaada amaba agab military u soo qaada dawladda deegaanka Ras Kamboni. kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. iyo waliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay.